بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كبر تجويد كسيف ضد عشر كواد هرودع كورسان وحلو تلقى كوة يقان سيد لو آخري قرآن لكن أنا قوم سيد سحد لو آخري كاسين وتجويد وما حي تجويد إن آخري قرآن كإذا للصوغة مخارج صفات حروفته إيوه شرعية آخرينته sharciyadan waxay dhacaan bog kasto dhab ahaantii waxay dhacaan sadar kasto sida daraadeed waxa laga maarmaan ah in la barto tajwiidka Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku soo diray quraankan Jibril alayhi salaam oo u soo diray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam marka waa in aan aqrinaa quraanka sidii uu aqrinay Nabi sallallahu alayhi wasallam tajwiidka ayaa nagu caawinaya arrinkaas Nabi sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay qof naga mid ma ahan qofka aan ku quraanka ku qurxin codkiisa kaasi waa degniin adag laakiin in codka la qurxiyo kaliya kuma filna hadii dib uu ka jiro xagga makharijta oo kale ama dib ka jiro xagga sifaadka iyo dib ka jiro xagga shuruucda hadaba aan halal u aragno dibka ka jiro makharijka waxa kamid ah wallahu alimun wa hadii aad si qurxan u akhriso laakiin dhahdid wallahu alimun macnaheedu waa ilaahay waa mid xanuun badan sababtoo ah عليم هو الله وحكست يقان لكن عليم المعنى ذو حنون بضن استغفر الله لبعتك جرت الصفات كحك بدأه سيد قف إنه له الله أكبر صح ما أهن وإني أهتا الله أكبر سيد عربي أهبه لبعتك جرت الشروع ذو حكم سين وقف وآخري خلقنا وآخري تاسوا مصيبة صوبته خلقنا معناه ذو أنا أيان أبورني لكن خلقنا معناه ذو هبين كس أيا أبوري waxaan ku aqrinaynaa gaf sababtuna waa barasho la'aan ama luqadeena hooyo ayaa carabi ku qasantay sida dadka urdu ku hadla sida urdu ay u akhriyaan ama tajwiidka ma uusan arkin qofkaas ujeedooyin kursooyinka ah in lagu caawiyo inaad quraanka u akhrisid sax ah kaasina waa tajwiid in lagu baro shuruucda asaasiga ah ee tajwiidka ayadoo ay faa'iidooyinkooda la jirto iyo caqliga la isdhahay inuu ka dambeeyo iyo in lagu baraatikeeyo shuruucdan xurufta soo laalaabata taas oo ah 350 xuruf dhamaan casharada dhaca quraanka gudihiisa 40,000 jeer ma sha Allah iyo in lagu siiyo talooyin baraatikeed oo ku saabsan sidii loo fuliyo shuruucdan insha Allah si saxan inaad u akhrido waxay kugu dhiirigelinaysaa si farxad aad u badan dhexdaada iyo inay ku dhaweyso Allah subhanahu wa ta'ala ma ku baran kartaa tajwiidka waqti sida u kooban dhabaantii waxay qaadataa bilooyin in lagu barto laakiin koorsaan waxay ka dhisaysaa aasaaska iyo inay ku siiso hordhac shuruuceed iyo inay kugu hanuuniyo fulinta shuruucdan si fudud oo saameyn leh marka koorsaan waa mid fudud oo sahlan markaasna gaaban alxamdulillah 3 daqiiqo gudahood bes waan dhameyn doonaa koorsaan insha Allah markii uu shaydan ku sheegin inaad mashquulsan tahay jazakumullahu khair wassalamu alaykum warahmatullah fadlan booqo www.understandquran.com koorsooyinkeenu kuwa oo kala akhri quraanka bara tajwiidka iyo fahamka quraanka iyo hal barasho ah